laba doorasho iyo duniya loo qaadaysa mid waa tii xisbiyada marka saddex xisbi soo saartan baa madaxweynaha la dooranaya ururada carariya madaxweyne doonaya ma dhici karta inay ururado urura sameeya madaxweyne gudoomiyaha dib u suga kontareeska sharciga ma diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahanahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka oo dhan socoto shaqaale aan u samayno gobolada la geeyo ay hoos timaado oo si joogto ah maamushaha iminka maxaa dhaca komishanka markay doorasho cid dabo iska nastaa waa farada 2-3 years baan hawl badan qaban komishanka marka waxay ahayd inaad samaysaan official ilaa districtida taga oo shaqaalihiina oo daatadiina ururiya oo protective security daatadiina ay tahay protected dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaara laakiin mar qura loo diiwaangelinta galo waa 8 milyan dollar 8 milyan baa ku baxay 7 milyan haddana doorashadii baa loo hal galo waa 7 milyan oo 14 milyan waa security iyo baybarka waraqa laga shaqeeyay inta idinku baahantiin inta in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan dadka yar weyn oo waxba hayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxa la idinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waay arag u lahayn badan cilmiga tan meel badan inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorashada dalka laynoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeyaa positive-kooda loo qaata markaase waxaanoo buuq inaga yaraanaya haddii kale intii doorashanu galo waa iskooda mid uun marka la galayo waa dagaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waaba routine bini aadmuna dee wuxuu qaataa waay arag oo ka baxa ay hob ina taa xalisaan sida aynu heshaan fishan ka dheereeyataan anu wada la shaqeynaa gacan buuxaan naga helisa hawlaha wixii fudanay waxayna intaa waayeen intaa ay wada shaqeyn wanaagsan dhammaantiin soo dhawaada dee idinku waa la tuugaya imika qaranku idinku tuugaya kolkaasaa expectation badan baa la kala tiirayaa iyo taagtii loobi allah idiin sahlo marka anigu se waan ogaado waa idinla garab gelaya waa mahadsantihi